gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo telefishinka caalamiga Home Cable TV waraysi gaar ah ku siiyay wadanka Jarmalka ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu ka warramay isbedelka maamul ee ka dhacay dalka Itoobiya ayaa waxa uu yidhi waxa isla isbedelkaasi saameyn badan ma nagu leeyahay sida aan ilaa hadda aan maqlayna Somaliland arrinkaas wax dareena kama bixin waxyaabo lagu soo qaaday waxa kamid ah dekedaha Soomaaliya inay Itoobiya Soomaaliya ku heshiiyeen marka waxa laga rabaa dekeda berber ku jirta inay Somaliland ka jawaabto xukuumadda Muuse marna hadday yiraahdaan imaaraadkan la gashay marna Itoobiya Soomaaliya ka wada hadlayeen dekeda Soomaaliya ummadda waxa la rabaa inay xog dhaba ay siiyaan Cabdiraxmaan haddaan xisbigaaga wax ka weydiiyo in doorashadii way dhacday in si kastoo doonaha ku guuleysteen xisbiga kulmiyaha dalka haya in Cabdiraxmaan waxay dadku isleeyihiin doorashooyinka dambe ma soo sharaxaya ma soo sharaxay wixii hor joogsanaya ma jiro in soo sharaxo Cabdiraxmaan in hore waxa uu sheegtay in Cabdiqaadir Jidal uu wareejin doono gudoomiyaha xisbiga 40 cisho kadib in beesha uu ka soo jeedinaa way hor fadhidaa waxa doonayaan xisbigii lagu wareejiyo in goormas rasmi ugu wareejisaan xisbigii mise wali go'aan lagama gaarin heshiiskii aan ku heshiinay Cabdiqaadir iyo odayaasha kaleba uu hirgelay hadda la ka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in waqtigan ay beesha caalamku dhabarka u jeedisay Somaliland ayaa waxa uu yiri ma khilaafsanaa in xukuumadii kulmiye kala dambeeyay tii hore iyo tanba halkeen ka joognay beesha caalamka aynu hoos uga dhacnay laakiin wali rajadii way jirtaa dadaal bay u baahan tahay xukuumadda laftigeeda waxa loo baahan yahay shaqada ay qabanayso in ka badan inay qabato gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sidoo kale waxa uu ka warramay safar ku kala bixiyay qaar ka mid ah wadamo iyo Sweden iyo Denmark iyo Jarmalka oo hadda joogno intaba uu soo bandhigay Jarmalka laftigiisa waxaan kala kulmay hay'ado maalintii weyto abaarihina ka qayb qaatay haddana diyaar u ah waxa ay la kulmay waxa kamid ah inay igu yiraahdeen dayuurad baan u diray bariga abaaraha imakana inkastoo xog badan kama hayn oo lama soo sheegin arrinta duufaanka laakiin diyaar bay u yihiin ka qayb qaataan Abdirashiid Cayntee Home Cable TV wadanka Jarmalka